xidigaha warshe caawa sida weyn aan la hilmaami karin loo madadaaliyey iyo ardayda macallimiinta dhammaan reer warshe oo aanan kala reebeynin iyo culumadooda iyo dhalinyaradooda iyo odayaashooda aanan kala reebeynin salaan qiimo badan ayay salaama assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaan aad ugu mahadcelinahay gudoomiyaha degmada warshe kudayashada mudan sida wasiir saaxiibkay ugu sheegayba aan dhihi karno waxaan ka gudbina aan hayno waxay noqonaysaa aniga ka wasiir ahaan degmadii ugu horeysay howl shaqo ah inaan u imaado xaflad oo shaqadeeda ah agada fur ayay noqonaysaa taasna farxad ayay ii tahay waxaa jiray degmooyinka kale inaan booqasho kormeera ku sameynay meelaha xoolaha lagu iibiyo sida jowhar iyo baladweyne iyo buluburto ayadan ama tagnay laakiin inaan xaflad shaqo ah ka daafurno waxay gaar u tahay degmada warshe taasna waxay ku maqeysatay nabadgelyadeeda iyo dadkeeda sida isugu dooreysay run ahaantii deegaan walba sidaan wada ognahay waxaa dhistay dadkiisa waxaan qaadanay system federalism ah systemka federalismkana wuxuu sheegaya inuu qof walbaba meesha uu joogo oo quruxsado sidaan arkaynin hadday wareegeeraan soo sameyn waxaan soo aragnay saldhig inay leedahay waxaan soo aragnay inuu leedahay goobo waaweyn oo iyo degmada warshe lagu yaqaano inay caan ku tahay diinta faafinta diinta inay caan ku tahay masaajida waaweyn ku yeelo waxaa ku yeela suuq waxay leedahay dhammaan wixii loo baahnaay oo basic needska bulshada wixii u baahnaay oo dhan way leedahay fariintaasna waxaa idinka gaarsiin doonaa madaxda naga sarreysa ayaa idinka gaarsiin doonaa markaa soo laabto wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxay maandeed u haysataa keergaraynta xoolaha iyo dhirta nabaad guurka lala dagaalamo iyo daaq iyo xereennadii waxyaabasi maandeed u haysataa sidaan wada ognahay xoolaha soomaaliya waxaa lafdabar u ah 3 shay aa lafdabar u ah 3da shay mid waa labadeena wasiir oo socono waaye waa kalluumaysiga iyo xoolaha iyo beeraha waa dhaqaalaheena marka adduunka aa geshid ruga aa geshid oo aad tirahdid economic soomaaliya basickiisa markaad fiiriso waxaa ku soo baxaya waxaa waaye loodi iyo arigi iyo geeliya kuu soo baxay kalluuna kuu soo baxay beerana way kuu soo baxayaan intaasna waxay yihiin waa inta shay oo ugu fiican ee bulsho inay ku noolaato loogu talagalo markaad adduunyada tagtid ama aad dad kale ajnabi kale aad la sheekaysanaysid markay beerahaaga iyo xoolahaada iyo baddaada ay arkaan waxay ku leeyihiin suurtagal maaha sidee ku dhici karta soomaaliya intaas ceebtaas intaas la eg leh inay dadkeeda baahi u dhintaan sidee ku suurtagali kartaa waxay ku noqonaya macnaha su-aal aad u adag oo aysan macquul ahayn marka waxaan ku dhiirigelinaa qof kasta ee maanta jooga ama khudbadeena dhegeysanayo inuu xooga saaro sida kheyraadkaas loogu faa'iidaysan lahaa wasiirka waxaa haysataan dhalinyaro ah aqoon-yahano ah u diyaarsan niyad fiican ee u diyaarsan inay nala qayb qaataan waxaan ku dhiirigelin doonaa markii oo ustaad cusmaan gaab oo ah madaxa xiriirka hay-adda sareeba ugu casuumiyo xafladan ayaa rabnaa inaan furno waxaan u dooranay inaan warshe qarigna ma korahay aniga waa conform garay waxaan warshe waa meel aan marka horeba niyadda ku lahay inaan booqdo waa conform garay marka dabcan aada ugu mahadsan yahay waxaan raadiyey marka ijaawadii karta oo wasiir aad tahay waxay ku soo baxay 3 wasiir wasiirka kalluumaysiga wasiirka caafimaadka wasiirka waxbarashada طبعا ayagana wasiirka caafimaadkana aysan joogin waxaa jiro xaalado fatahaadiya weligii iyo waxaasaa jiro waa aada loo wada mashquulsan yahay anaga beri 4 saac diyaaradan ku qoranahay dadweyne aan rabnaa inaan aadno xaaladahaas ama gudno anigoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waxaan rabaa inaan u wada duceyno walaalaheen reer dadweyne oo ay dhibaatada fatahaada ay haysato waa dad walaalaheen ah oo nagu state ah oo duruufaha iyo baahiyaha aan qabno oo kala qabo ayagana fursaddaasaan ugu faa'iidaysanayna inaan wada duceyno warshe haddee culimmadii o dhan aa joogto kulli waa booqan doonaa
sheekh ulbeledki iyo waxaas oo dhan waa wada booqan doona hadduu ilaahay ka raali noqdo waan u weydiin doona in loo duceeyo dadkaas xoolaha muhiimad gaar ah ayay noo leeyihiin anaga wasaarad ahaan policy ayaan ka leenahay policygaan ka leenahayna midna waa long run midna waa short run ama waxaa la dhahaa mid fog iyo mid gaaban qorshaha dhow oo aan ka leenahay waxay tahay Soomaaliya xoolaheeda in laga cirib tiro waxyaabaha cudurrada dilaaga ah oo la isqaadsiiyo cudurro waxaa jira la isqaadsiiyo dadkii xoolaha isqaadsiiyaan waxaa jiro xoolaha hilibka xoolaha waa cunaa dabcan haddii aan neefka la jeegaraynin caafimaadkiisa aan la jeegaraynin aa isticmaalaysa waxaa laga yaabaa cudur adiga iyo neefka xoolaha aad ka qaadi kartaan ma jiro waana cudurro tirsano waxaan samayn doonaa oo aan qaadana shaqaalo ilaa iyo aqoontooda ay aada u sareyso waxaan samayn doonaa degmo kaste suuqeeda waxaan ka hirgelin doonaa barnaamij oo certificate ah oo xoolahaas neefkaas la qalaya inay sukuur yihiin oo caafimaad qabaan waa aragnaa dad caano cabo inay ku sumoobeen ay ku dhinteen waa aragnaa inay dad raashiin cuneen ay ku sumoobeen waxaasoo dhan oo waxyaabaha faydoorka oo public healthiga ah inaan ka qayb qaadana ay muhiimka tahay waaye marka taasna waa siyaasado u dhow ayaan ka leenahay mideeda kale sidaan wada ognahay waddanka markuu burburka ka dhacay aqoonyahan kaste xilliguu joogay ayuu xooga saaray qolo dhaqaatiir ahaayeen waxay xooga saareen inay caafimaadka sii wadaan qolo dhaqaatiir xoolay ahaayeen sida livestock associationkan oo saaxiibkii cusmaanka nagala joogo sareel baldahay ayagana waa dhaqaatiirka xoolay ahaayeen waxay sii wadeen inay xoolay ka gareeyaan meel fiican ay soo gaarsiiyeen oo lagu faani karo sidoo kale waxbarashadii dabcan dadka wax baranayay oo rag badan ay soo saareen oo aqoon-yahana oo maanta aniga waan kamid ahay dadkii burburkii inta badan wax ku bartayaan nahay marka daadisa waxaan dareemaynaa inay gaabskii banaanay ay dadkii ciqaabeen ay ka faa'iidaysteen marka u mahad celinaynaa hay-adda sareelba waxay waqti fiican oo loo baahnaa ay soo gaarsiiyeen meeshoodii waana wada shaqayn doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo laakiin madun waxa uu wasaaradda waxay qorsheynaysaa inay la wareegto dhammaan shaqooyinka inay la wareegto wasaarad kasta inay shaqadeeda qabsato hay-adihii shaqada soo wadeen ay noqdaan dadka professionaalka oo shaqada wadi doona ay noqdaan barnaamijda looguma tegi doono waxay noqon doonaa in ayagii la xoojiyo outsourcing loo sameeyo oo ayagii ay ka qayb qaataan ayay noqon doonaan marka waxaa kaloo jiro sidaan wada ognahay dhirta waxay ka mid tahay waxyaabaha ay cimiladeena ay ku wanaagsanaanayaan noloshana geeday ka bilaabataa oo dabcan saan dareemayno neefka aan qabano geedu soo daaqa hadduusan geed soo daaqin hilibkiisa dhadhan male dhirta oo aan cunno oo mooska aan cabayno waxaan biyahan hooyo dhammaan waxaas oo dhan waxaa laga sameeyaa